بسم الله الرحمن الرحيم وحان أخريي بوك دوان صوبحي وقري قراغا محدين حسين عيد بوغا ومقعيس اللي يرهدو قريس مارس بوغا واكا قلكيسة عاد ujeedaan قريس مارس قرا محدين حسين عيد بوغان aad baan uga helay sababtan uga helayna waan idin sheegayaa buugga horta waa book fiction nooca fictionka loo yaqaana ah soomaalidana buwaagta sheekooyinka soomaalida inta badan fiction ku saabsanna waa fiction jacayl ah mala awaalka waa kuwa jacayl ku salaysan weeyaan buuggan laakiin magaciisaba sidaad ka arkayso qore ismarisaa la yidhi magaca wuxuu u eg yahay sheekooyinkii carruurta iyo waxaa looga sheekayn jiray waa sidaas laakiin haddana ma aha waa ka weyn yahay waa ka baaxad weyn yahay haddaad si kale aad u fiiriso sheekadan waxay ku salaysan tahay ama ay ka dhacday dalka Kenya nin hore u ahaan jiray ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo qoraaga u siiyay magaca Albert ayaa isaga iyo xaaskiisa Dr. Susan oo ah scientist dhinaca biology-ga iyo xayawaanka wixii ku saabsan iyo laba carruur ay dhaleen wiil iyo gabar ayaa waxay tagayaan dalka Kenya ay fasax ku tagayaan halkaas way ku leeyihiin beertu waxay ku dhex yaal qasri weyn oo iyaga ay leeyihiin ma aha inay iska tageen oo kaliya sababa meesha ku soo oo isaga aabihii ayaa halkaas joogi jiray oo buundo halkaas ku taal dhisay xilligii Europeanka ay qabsadeen Africa iyo meelo kale oo adduunka kamid ah marka ay tagaan halkaas ayaa waxay la kulmayaan isla maalinimadaasba shil ka dhacay gurigooda hortiisa shilka waxaa ku dhintay qof waayeel ah 100 iyo jira cadaan ah dumar ah qofkii marka la soo qaado isbitaalka la geeyo baaritaanka lagu sameeyo waxaa laga helayaa jirkeeda xubno xayawaan oo kale ah xogaa cajaa'ib ay noqonaysaa idaacadihii dalka Kenya aad u qabsanaysa idaacadaha adduunkana markiiba waxay bilaabayaan inay ka hadlaan Dr. Susan oo ku takhasusta arrimaha noocaas oo kale ah ayaa waxa looga yeerayaa isbitaalka baaritaanka lagu sameeyay marka adigoo ku mashquulsan qofkaas bini aadamka ah boqolka jirka ah haddana xubnaha xayawaanka kale leh ayaa haddana qoraaga markiiba wuxuu ku kaxaynayaa meel kale oo attentionkaada meel kale tu gaarsiinaya Dr. Susan intay ku soo maqan tahay Nairobi iyo isbitaalaadka soo kaleeto ninkan waa prime minister oo ahaan jiray madaxweynaha Kenya soo booqanaya salaamayaan xogaa protocol ba meesha jiraya maalmo yar kadib ayaa waxa dhacaya labadii carruur ahayd oo beerta ku maaragtay damaashadaya ayaa oo ay la socdaan shaqaalihii reerka u shaqeynayay iyo maadaama ninkan uu ra'iisul wasaare hore ahaa ilaaladiisa ay la socdaan carruurtii meel iska ciyaara ayaa mar waxa la maqlayaa dhawaq aad u weyn xayawaankii beerta iyo agaaraha ka dhawaa ayaa isku dhex yaacaya wada qaylinaya haddii lagu soo ordo meeshii wiilkii iyo gabadha waa la weynayaa waxaa la helayaa dharkoodii oo jeexjeexan ma raba sheekada dhanba inaan ka wada sheekay laakiin waa dulmar keliya dharka dhiig ma laha carruurta xaggee ka baxeen markiiba waxaa la isleeyahay armaa la afduubay armaa dhanka iyo Kenya dhanka iyo Soomaaliya loola baxsaday baadi goob adag ayaa la galayaa booliiskii iyo dambaarayaashii Kenyaatiga dad dambaarayaal iyo sirdoon Ingiriis meeshii imanaya dhanka kalena waxaa ka socda qofkii waayeelka ahaa baaritaankii lagu hayay arrintu waxay galaysaa armay qola afduubtay ay ka iibisay kooxda al-shabaab oo dhanka iyo Soomaaliya loo gudbiyay qoraaga wuxuu cajaa'ib ku leeyahay marka uu ka hadlaya halkii lagu qalayay oo lagu baarayay qofkii waayeelkan waxaad moodaa inuu aqoon gooni u leeyahay ama in badan uu soo arkay baaritaanka noocaas oo kale marka lagu la sameynayo markii
falkan halkan ka dhacay fal dambiyeedka ah la baarayana waxaas leedahay qoraagu aqoon durugsan ayuu u leeyahay arrimaha dambi baarista iyo wixii la xiriira haddana dhanka kale markaad fiiriso sirdoonka iyo hay-adahan ururadan loo yaqaan argixisada iyo sida loo baarayo iyo ururadaas laftirkooda si u shaqeeyaan iyo waxay ku tusaysaa qoraaga inuu sameeyey baaritaan dheer oo ku saabsan waxyaabaha uu ka hadlayo waxaa kaloo cajaa'ib ah in xayawaanka laftirkiisa uu ku sameeyey baaritaan bahalka gariga la yiraahdo wiisha shabeelka libaaxa dhurwaaga dawacada waxyaabahaasoo dhan wuxuu kaaga dharjinayaa mid walba markuu soo gaaro wuu ku hakanayaa sifooyinka ay caanka ku tahay uu kuu sheegaya laakiin sifooyinka caanka keliya ma aha sheekaduu soo gelinaya wase cajaa'ib ah ayuu u dhigaya arrintaas su-aal weyn ayaa waxay noqonaysaa qofkii xaguu ku dambeeyey waayeelka ahaa xaaladiis waa yuu ahaa qofkaas exactly yuu ahaa iyo caruurtii xaggee ku dambeeyeen ma raba inaan ka sheekeeyo inta waxaan rabaa buugga inaad aqrisaan idinkana aada ogaataan waxaa kaleeto uu ku tusayaa qoraagu haddii mar annaga oo bini aadam ah xayawaan nala ka dhigi lahaa oo dib naloo soo celin lahaa adduunyada waa wada hagaaji lahayn maxaa yeele waxaan ogaan lahayn dhibaatada aan ku hayno